ومؤامرات وحاس فريم قريناي وح مؤامرات اللي يرادو وأنا عن سمينا يعني والله بالله طلع نسجل وحن شيل أيها سيدا وفي عن إن أهندل الجريان عن سنة وياي لما كل واحد جرا كلن عبد حاشي في قبل كلو أقل كسره أي مدحوين فرماجة لقاته يجو حق دون أرنتان قلب لقى حوس أبصر مركي أوتجرنا مدحوين هذا كل سوء حريري تلفون كاسو عاي دي تناعد كبيرتي كلن كاسي مدحوين فرماجة يا عبد حاشي مدحوين هو كيري وهذا الشيء يسي عبد حاشي وشيء كلن كاسي محضر هذا الشيء أرن كاسو حبنا كدري معها حبنا كلم معها سيد عبد حاشي وشيء إن المدحوين هي يعني أنت اللي وديه وحاس أنشيء اللي ورم بين ما مكش الله ينسى حرق مدحوينها هذا أنا قملي أنا ما كنت جرين ولا يقصبي ولا يالي هذا أنا اسكملي أنا I'm part of it وقرنا إلا يقع فيها أنا ربان كور ها لكن لو واحد جرت إن قلب رجع كل ليسان وفيزا إن لقى عاوية دولة إثيوبيا نلودي بورالي كي هيسي إثيوبيا وله شيء سداس موجودها سي مشروع عن الله حليه مدحوينها رئيس الوزراء وان كعد سنة قوان جيسنا إلى قاتان مقلدم وإلهي وان لفكيني كلها وسيرة فريسيان كاسا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن الله وضيال وحتكون سلواتان ورئيس قار أهوان الله يلين أمباسطور عبد الله محمد علي سنبلو الشيء تليه هو إنه بتسويدا قرنك الصومالية سيدو كان نصون وضي أمباسطور كي دولة الصومالية وفنيي ذلك يوكي ورئيس قاني هدين أبي يرهدو وحن ديرد كساري دولنا هذا الحين تبصو وقتمد kiiskii qalbi dhagax oo mar dawladda dhexe Soomaaliya ay ka soo xirtay galkacyo sidaasina loogu wareejiyay dawladda Itoobiya waraysi ay bixiyeen qaar ka mid ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa hadalhayn fara badan ay ka dhalatay inagoo eegayna xogta looga baahan yahay in laga helo arrintan ayaynu waxaan xafiiskiisa ku booqanay Ambassador Samboloshe oo aan arrimahaasi wax ka weydiinayno Ambassador waxay noo tahay fursad mar kale inaan xafiiskaaga joogno intaas kadib 27 saacadood ee la soo dhaafay baraha bulshada iyo warbaahinta waxay aad u hadalhayeen kiiska qalbi dhagax oo mar kale soo ifbaxay waxaana ka hadlay afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in kiiskaasi iyo habkii loola tacaamulay xog far badan aad adigu ka bixinaysay kulug lahayd kulamo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi iyo xubno kale oo sanatarada ah goobjoog aad ka ahayd maxaad inagala wadaagi kartaa arrimahaasi بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنتين تيمك دلسن runtiina mawduucan waa mawduuc time leh ama waqtigii ku haboona in laga hadlo ay joogto anigu horta mudaba arrinkan waa arrin xasaasi ah waana ka leexleexanaay si toos ah uga hadlo anigoo ilaashanaya my professional credibility because taliyihii sirdoonkan ahay mas'uuliyadda koobaad waxay tahay sirta qaranka xafiiskaas intaan joogo inaan ilaaliyo sirtaasna waxaa ka mid ah go'aamo waaweyn oo saameyn ummadda Soomaaliyeed ku leh ama ha qaldanaadaano ama ha saxsanaadaano muddadii 3 sano la soo dhaafay waa maalin kasta waa farta afka la gelinayay si aan arrinkan uga hadlo hadda bacdama uu u muuqdo mashruucan ama hadalkan musalsal ma dhamaata ah anigoo tixraacaya hadalkii maaldoweed adeer Cabdi Xaashi uu sheegay horta anigiisa u fahmay sida Cabdi Xaashi hadalka uu dhigay dadka u fasiranaya anigu uma fahmin inuu mas'uuliyadda bilaawi dhamaad Samboloshe uu saaray sida Cabdi Xaashi uu sheegay anigoona hadda mana ku beeninayo sida loo fasirtay ma si inta uu sheegay ma beeninayo waa runtii sorto aniga iyo asaga iyo madaxweynaha wada hadalkaas inuu dhaxmaray waa run laakiin su'aashu waxay tahay horta meesha Cabdi Xaashi ugu la kulmay xagee ahayd yaasi joogay markuu la kulmay qalbi dhagax markaas ka hormaal dhiibay mise kadib ayaa la dhiibay asagoo oday Soomaaliyeed oo arrinka laga tala galiyay oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ku soo baxay uu ahaay muxuu ka qabtay haddii uu nin wadaniya ama xaldoon yahay markaas muxuu intervention u sameey waayay sida asagaba ay uga hoos bixi karto taladu ay horta qof kasta mas'uuliyadda oo Soomaaliyeed talada uga hoos bixi karta horta maqaldam waa ilaahay waxaan rabaa marka rikoorka arrinkan inaan sadgareeyo oo aan ifiyo shaqada nabad sugidda horta waxay tahay iyo doorka ninka madaxda ka ah marka ay timaado qadiyadahan oo kale muxuu yahay
horta sida malaa'igta ilaahay qaarna ay furaha jannada u hayso qaarna ay furaha cadaabta u hayso ama ay maamusho cadaabta ama ay jannada maamusho labadooduba shaqo kala fiican ahayaan laakiin dabcan shaqadii loo idmaday oo ilaahay u dirsaday haayaan shaqada nabad sugiddu horta shaqo dadka loo burcad loogu mariyo maaha maali ilaahay keeno daday soo qabataa ama wax cad ha ku hayso ama tuun ha ku haysee shaqadeeda horta dad soo qabasho waa hadda ka hor nabad sugidda aan joogay hadda ka hor qalbi dhagaxa magaalada joogay sooma qaban wax kastana waqti iyo qadar allaa jirta anigu marka sideedaba soo qabashaan leehay haysmana waa leehay markay timaado foreign policyga dowlad kaleeto iyo dowladda soomaaliya wax dhex maraya horta aniga mas-uuliyaddaas malihi xukuumadaan u dhisan madaxweyney leedahay ilaama kala dowladoodo fara badan oo la dhaqma aniga shakhsiyan mas-uuliyadda iskama filqaayo oo waxaan rabaa inaan qirto qaybtii aan ku lahay doorkaas dabcan shaqada iyo xafiiska iyo mas-uuliyaddaasa ii keenaysay haddaba qof intaan qabto mana xiraayey ii sheegeen mana dhiibaay waxaan rabaa marka inaan fahmo horta dadka soomaaliyeed haddii uusan is-indhatirayn wuu fahmi karaa wuuna miisaami karaa siday wax u dhaceen waxaan rabaa marka aniga shakhsiyan nin oo mas-uuliyaddiisa ka gelgelanaya maaha marka howlahan oo kaleo xasaasiga iyo xafiis xasaasigan aad ku dhex jirto go-aamo badan oo criticaala oo natiijadoodu qaldamaan iyo kuwa saxmaanba waad samaynaysaa anugu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagaxa iyo qoyskiisii iyo ummadda soomaaliyeed iyo onlf aan ugu cudur daarto oo raaligelin buuxda oo publiga aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaana rabaa soomaaliya inaan u sheego arrinkaasu anigana igama bilaaban igumana dhammaan inuusan iga bilaabanin iguna dhammaanin waxaad caddayn u ah qalbi dhagax waxaa laga qabtay gaalkacyo si kastabaa lagu sida loo qabtay iyo cidda ka dambaysay iyo annada waxa waaye ama wakti kalean ka hadli doonaa faahfaahinteeda haddana ma rabna inaan ii sheegeen waaba arrimo sira maba fiicnaba laakiin maalin oo declassification lagu samayn karo ayaa jirta oo laga hadli karo haddii aniga marka aan qalbi dhagax mashruuciisa uu kooban yahay qalbi dhagax gaalkacyo ayaa cabdi iley iyo etoobiyaan iyo ciidan puntland iyo maamulka galmudug ay kulligood ku baratamayeen inuu gacanta u galo etoobiyana lagu wareejiyo markaas horta gaalkacyo la joogo sanbalooshaa waxaan ku takrifalay waa la dhihi karay ayada nafteedana hadde ay tahay yacni doorkan ku lahay iyo taas nafteeduna calaama su-aal ay ka taagan tahay qalbi dhagax aniga waxaan aaminsanahay waa soo badbaadiyey bad iyo calool libari ku jira waa ka soo baxshay xamaraan keenay xamar markii aan keenay horta kadib aa la diray gaalkacyo lagama dirin haddii gaalkacyo laga diri lahay cabdiiloy inuu dilo si raqiisa in loo gato qadiyad wax oo hadda oo ka faa'iidi lahay gaalkacyo in laga dhiibo ninka la yidhaahdo ii sheeg maxaan ku dhahaa qalbi dhagaxna oo wax oo ka faa'iidi lahayn anigu hadda ma og waxaa kuu soo haray dadaa leh waa mu'aamaraad oo waxaas frame garaynaya wax mu'aamaraad la yidhaahdo oo aniga aan samaynayn wallaahi billaahi talaan is jir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handalgarayaan aaminsanaha oo ay tahay horta kow ninkii habal la qabtee laakiin si raqiisa inuusan ku bixin xamaraa la keenay kadiba xamar uu ka tegey anigoo hadda aan lahayn hebelaa ka dambeeyey hebel waa ka dambeeyey hebel waa ka dambeeyey waxaan rabaa marka inaan soomaalina mid idhaahdo qalbi dhagaxna iyo ololfna mid dhaho madaxweynaha iyo xukuumaddana mid aan dhaho waxaan rabaa horta kow madaxweynaha iyo xukuumadda kayskan sida aan u handalgaraynay overall mas-uuliyaddiisa ka macaran karna waa mishandalgaraynay si fiican waxaanoo daraamaa iyo buuq ah mishandalin micnaha marhabaabin maahan yani sida oo loo xakameeyey si xigmaysan ma ahayn anisaa aaminsanaha waxaasuna de ama duruuftaha iyo waxaasaa keena gadaalaan ka faahfaahin doonaa waxaan jeclahay marka bacdamaa
xukuumadda Soomaaliya oo NLF iyo qalbi dhagax iyo waxoo dhanba ay yiraahdeen waa argagixiso horta waxaan rabaa xukuumaddii dib in loo fadhiisiyo talada aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha siinayo waay oo ay Ethiopia oo shalayba ay terrorist NLFna ugu qorray qalbi dhagax u qoran waa ka tiraan waa xisbi iyo dhaqdhaqaaq la aqoonsiyahay oo xalaal oo aan argagixis Ethiopia ka ahayn hadii Ethiopia shalay ay la dagaalamaysa ay maanta argagixis ka ahayn annaga buukiskeena argagixis oo aan laf kuma qornaan karto si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo in ay qaataan maqaldam waa ilaahay oo aan laf inay golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaran liiska argagixisada oo aan laf xamar ay ku martiqaadaan qalbi dhagax xamar ay ku martiqaadaan si guud Soomaaliya ay ugu samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso oo aan lafna ay fursad ay u hesho in caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garayntii iyo argagixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan taas horta madaxweynaha waxaan kula talinaa ii sheegeen waxaan kula talinaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guud ahaan mashruucan inay iska soo xiraan raali ahawna waa wax la fahmi karo nin weyn qaladkiisa qartana dadku waa ka garaan karaa waxaan rabaa qalbi dhagax iyo la filmidaan dhaho qalbi dhagax hadda kor xabsigan ugu tagay waxaan u sheegay dawladdii Soomaaliyeed tacbaanka ahayd dartiis inuu dumar rabto waxaan ka codsaday asaga uu badbaadi doonaa inuu ka faa'iidana dhici karta waxa uu hadda sharta loo maleynaaye horta inaysan dartiis dawladda Soomaaliyeed aysan u dumin oo farmaajo Soomaali haddii si kaleeto u ridayso ama ay talaab uga qaadayso kuushiya lagu qabsan karaa jireen because of qalbi dhagax inaan horta maalin ilaahay keeno aanan cusbada nabarka farmaajo lagu xoqoqay Soomaalida haddii lagu soo jeediyo apology iyo raali gelinta aniga shakhsi aan ku soo jeedin in nin hadda waxna deystan waxna disho waa tahay waa garaawis karta inuu uga garaabo guud ahaan oo aan laf iyo asagana waa rabaa haddii Soomaalida iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu kalsoonidaas intii go'aankaas qaataan raali gelin ka qaataan inuu qaato waa rabaa waxaan rabaa marka mashruucan marka Soomaalida midaan leeyahay marka midaan leeyahay Soomaalida waxay tahay waxaanu drama iyo waxaanu negativity iyo waxaanu weerar waxa lagu toojar gareynaa madaxweynaha lagu toojar gareeyna ee wax ma aaminsani Soomaalidan qaylinayso crocodile tears waayo oo hintooda waa been مواد ودانينما إنك تاي مقبو Soomaali jecel inay ka tahay ma qabo qalbi dhagax difaac inay ka tahay ma qabo qadiyad oo aan lafi u taagay inay ka tahay ma qabo madaxweynihii bacdama wixii la kala cadeey waayo ninkaana lagu dhiba oo lagu tuhunsayaa wadananimo iyo malaha hadda ka hor game uu soo dheelaa lagu xumeeyna ma ogiye ma u maleynay Soomaalidu in ay waxaanu dhab ka tahay war Soomaaliya sideedaba ishaan waxa u yeelo waa Soomaali ee farmaajo uma yeelin farmaajina dawlad Soomaaliyeed ma difaaci karo qof Soomaaliyeed ma difaaci karo inta duruufteenu sidan ka tahay dabiiciyan dawladaha fashilmay oo wiiga ah anagoo kale taa qadiyadahooda iyo go'aamadooda masiiriga siyaasadeed uma madax banaana tusaale waxa ka soo ah adduunka dagaal ka soo dhacay Germany oo kale hadda economic power ka Europe ah dagaalkii labaad adduunka 45 inta la qabsaday ayaa qoodihii Ruushka iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanku qaybsadeen ciidan ma sameeyay kartiin madaxdoodii maxkamadda la saaray dagaalkii magdhawa lagu xukumay waa la gumeystay Ruush iyo ninba meel ka degay taaka loo qaybsaday humiliation waa la qaataa ويعني waxa la qaataa ihaano waa la qaataa daruufahan oo kale dawladuhu markay marayaan marka madaxweyne Soomaaliyeed oo heybad ilaalin kara annaga duruuftan ku jirna ma jiro ninka odaga wuxuu san karin horta in lagu dhigay taas waxaan rabaa Soomaalida inaan ka codsano historyga kale aan rabaa inaan sheego waxay tahay Jarmal waa ka soo dabaalatay maxay ugu soo dabaalatay dulqaad ay ugu soo dabaalatay in ayaduna si tartiiba ay dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo madaxbannaanida u soo ceshato midnimadeedana ay soo ceshato maantana awood noqoto adduunka Yurub ka jirtana ay noqoto Japan nuclear lagu garaacay waa la qabsaday dalkeeda ciidana ma sameeyay kartiin xamaasha bisa la yiri adduunka economic powers ku jirta dulqaad ay soo yeelatay Finland waxa jirta dagaalkii labaad ee adduunka waxay la dagaalaysay Ruushka dirit la dabcan waana la isku garan karaa Finland oo 6 milyan 7 milyan ah
iyo ruushoo 100 milyan ama soviyetu markaasoo almost 300-400 million people ahay waa wajahday waa qaldantay last minute haddii ka weysay reer galbeedkii gacan ayadoon jeclayna allah waxay la noqotay Hitler iyo naaziyiintii wax yar kadibna Hitleraa jawaba ayadii marka waxay noqotay they have to pay the price madaxweynihii dagaalka hogaaminaya wasiirkii gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda italiyii ciidanka waxa lagu qasbay oo geesiyaal qaran ahay waxa lagu qasbay in la maxkamadeeyo oo dagaalkii ay ku difaacayeen Finland lagu dambeeyay war ahaanada Soomaaliya qof haybadeeda ilaali karta ma jirto dawladda haday jirtee madaxweynaha ayaan lagu dhibin mashruucan oo indhaha faraha ayaan loo gelin waxaan jeclahay kiiskan inuu soo xirmo shakhsiyan aniga waxaan wax aniga iga bilowda iguna dhamaada ma ahan waa wax dawladda Soomaaliyeed gib ahaanteed u yaal horta waxaan rabaa inaan arrinka aan saas u cadeeyo waxaan kaloo rabaa madaxweynaha midaan xasuusi aniga hadda koortilaha nabadsuugida waa aniga ahaa waa timar laga qaaday maxaa laga qaaday waxa laga qaaday xildhibaan xirti horta aniga xildhibaankaas ma xirin kiiska u muuqanaysa taas ma muuqanaysa meeshaan ku jirtaa meeshaan rabaa inaan cadeeyo meeshaan rabaa xildhibaan xirta aniga looga eeday xildhibaankaas anigu ma xirin nin sarkaala oo meesha nabadsuugida haysta godka xiray laakiin aniga eedda qaato waxa ay anaa xiray waxaan diiday qof shaqaalahayga ah oo aniga madaxdu ahay in gacanta inta la diibto ii sheegeen maxaan ku dhahaa anigu ma xirin asaga xiray si aan jagadeedu u badbaadsado madaxweynaha sideedaba ceebay ku tahay waxaan aniga mas'uul kama ahayn hebelo ii shaqeynaa mas'uulka inuu naga naf jeclaysto ay dadkiis oo ka naf jeclaysto dadka raba oo taageerada beentaana ay saas ay u sawiraan horta waa laga fiican yahay everything oo under his leadership ku dhaca sax qaladba mas'uuliyadiisa ma laga gaban karo sida anigaba taas aan u gaban oo aan shaqadeeda ku waayay waya qofkan shaqaalaha ah ee liisa ka shaqeynayay xildhibaanka xiray ma la wadaagi kartaa kuma ayuu ahaa ma hebel ma dhihi kara hadda waliba ninkaas anigana waa shaqada waa laga qaaday asagana janna laga dhigay bil kadib ebidkeena ma dhihin waana la ogyahay ebidkeena ma dhihin hebel xiray ninka la xirana waa ogyahay aniga inaan xirin kuwa wasiiraha shaqada ay qaadeen waa ogyahay inaan xirin ee curricular tiers ayuu ii sheegeen ayaa waxaan oo dhan laga ahaa waxaan rabaa marka sideeda generaalku ahaa ma noo sheegi kartaa magaciisa mar kale aan ka hadla mar inaan disclose garay ma rabo laakiin general ku qaatay waa la ogyahay waa la baari karaa dadku waa la fahmi karaa general ku qaatay anaan isku dhigay kiiskaas anoo dhihi kara hal xiro waa tuug ma yeelin faysifin anoo samaysan karo jagadeeda protect garay karo waxa yiri ninka shaqadaas ana amray ana iri of course maybe I mishandled laakiin waxaan diiday in lay gacan dhaafo shaqaalahayga horta madaxweynaha dadkiisa in loo gacan dhaafo oo la yiraahdo adiga ku jirtide hebel ii sheegeen maxaan ku dhahay asaga leex sax ma sida wareysigana ku jirtay oo bixiyo gudoomiyaha waxa kamid ahayd in maalintii ugu dambeysay maalintii ku horeysay ee qalbi dhaga xabsiga laga soo saaray in gaariga lagu soo qaaday adiga aad ku jirtay arrimahaasi sidaas ma u jiraan horta sideedaba aniga taliyaan ahaa minimum 3-4 kun qof aan ii shaqeynaysa sabab ani aan maxbuus qof xabsi ku jira aan toos ula macaamil horta ma jirto xaasha Allah Cabdiqaadir waxa maqla asagoo dhahaya baabuurka ninka saarnaysan baloosh inaa u mareena ma aha mana u tagin mana arkin aniga qalbi dhagax mana la sheekaysan baabuurna lama raacin wayahay dhanka kale waxaa jira kulan Cabdi Xaashi iyo xubno kale aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas soo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo Cabdi Xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa aad ii sheegaysaa Cabdi Xaashi oo sheeg kulankaasi maxaad uga hadasheen ruwan marka hore ma sheegaba fiiri run waay horta waxaan ka wada hadlay waa sheegnay arrinkaas waxbana ku dari maha waxbana ka dhimaha sida Cabdi Xaashi u sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyay waxaas aan sheegnay waa run been ma laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax qudhiisa oo fiisaa in laga caawiyo dowladda Ethiopia loo dhiibo oo raalli ka yahay si Ethiopia uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa ma aniga taas inuu qalbi dhagax dhiibay inuu dhiiban wax kale laakiin conversation ka aniga madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi xilligaasna dhaxmaray sida Cabdi Xaashi uu sheegay waa run yani conversation waa dhaxmaray laakiin habka loo stage gareynayo qaldan habka loo stage gareynayo ayaa qaldan
موجا conversation كاس وارون فضلا شرحات naga sii oo sheekaysigaas maadaama hadda ما مدحونا واب الشيء يعني waxaan ri arrinkaas waxaan ku darimaha in madaxweynuhu u yeeray qalbi dhagax ma oo isdhiiba ii sheeg maxaan ku dhahaa baasaboorkan hadda ma xasuusto Etoobiyaanka arrinkaas waa run يعني in oo conversation kaas aniga iyo Cabdi Xanshi madaxweyne ay yeelanay waa run odagaas ma ku beena arrinkaas qorshuhu wuxuu ahaa in qalbi dhagax Itoobiya lagu wareejiyo laga saacido sidoo ku tagi lahaa I think it's a matter is not hadalka oo sida loo sheegay inuu run u yahay inuu been yahay horta waa wax kale يعني aniga mar raba qastiga hadalka in sheegno Soomaa la conversation kaas waa yeelanay laakiin aniga hadda warkaas yani qalbi dhagax ma isaga dhiibay iyo qalbi dhagax horta qalbi dhagax isdhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibno horta marka rekoorka sare loo dhigo qalbi dhagax isdhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibnay Soomaa ma taliyana mid sugida sambal u sheegay ma sambal waa ku sheegay already aniga ku sheegay foreign policy ani dawladna ani xiriir la leh Soomaa aniga horta waxa rabaa Soomaalidu in tiraamay aniga ma dhiibin hebel a dhiibay orniyo arrinkaas qalbi dhagax dhiibay anu qayban ka aha laakiin igumana bilaaban igumana dhamaan amarka hal soo qabto gaalkacyo yaa lahaa si toos ah ma raba inaan arrinkaas waa operational details waana sheegay inaan ka hadlo ma rabaani ma raba inaan ka hadlo taas iga wala soo qabto taas ma horta qarsoon waaldi ama qarsoonta waxa kale too dhan aba arkiis waa argaagtan iyo ii sheegan rafasho haddii Soomaalidu wadaniyada aad sheegtay inaysan runka ahayn oo ooyintii xaaska ay tahay kiiskan mudane maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressureka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay ma aniga waxaan rabaa qalbi dhagax eedan waa laga galay waa run Soomaa laakiin waxaan ma aan ilaahay keen xabal ma kuna qof ku dhimato yaa qof weynaa maarat ma kuna Soomaaliya ku dhimata badda qof weynaa maarat ninkan waxa waaye sidiisa farmaajo Soomaalidu malaha markii horeeto they thought in all the on my big small god ilaah yar uu yahay wax kasto shar oo ka xigsan karo ya inuu ka xigsan kareetin horta calaamad u tahay war madaxweyne sideedaba dawlad kasta madaxweynaheed wuxuu reflection u yahay awoodda ama dhaqaale ama military ama midnimo oo dalkiisa oo dalaanan territorial midaysnay oo political midaysnay oo security and stable ahayn oo ciidan shisheeye joogo how do you expect in sheegeen madaxweynihiisu inuu sharaf yeesho oo waxaan difaaco maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressureka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay sideedaba aniga moogtahay marka aniga systemka aan ku jiro systemka hadda saddex sano 2 sano ka badan ka maqana anigu ka hadlay waxaan ma aragtay maya horta hadda waxaan rabaa rekoorkan sidiisaba in la xiro madaxweynaha initiative-ka uu qaato ra'iisul qaato mashruucan lagu xiraayo anigana waxaan rabaa inaan bilaabo waxaan sheegaan waa recommendations iyo talo aan siinayo madaxweynaha iyo hadda anigu ma ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay eed aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in laga cafiyaan rabaan ku yiri waddarka aad sheegtay waraysigan qaybtoodana ku jirtay ee qalbi dhagax iyo qoyskiisa ma si cad ayaad u leedahay kiiskii xarigii qalbi dhagax ee gaalkacyo dawladda ay ka soo qabtay qaybtii aan ku lahaa ayaan si toos ah idinkaga raali gelinayaa saas miyaad leedahay of course wax kasto processkaas oo ama xariga ama dhiibista ama dhibaato ka soo gaartaan ka raali gelin xukuumadana uga baaqay in ka raali geliyaan mashruucana iska xiraan adiga kala maanta oo dhan waa lagu dhibaa ka shalaynaysaa xarigii qalbi dhagax sideedaba marka xafiiskaas aan joogo wax shaqada aanay qabanaa waxaan ka shalaynaa ma jirto ani shaqo oo aan danteyda aan ku qabsanay ma ahayn wixii markaas ila ahaday dadkaan xiray anigu furo janna ma ahayn waa ku sheegay aniga sideedaba of course wixii ficilkaaga oo xumaanaho bini aadan ka soo gaaro dhibaato ka soo gaarto waxa la yiri walaalka canduftaadu gaarto gacantaada ha gaarto aad baan kaga mahadcelinayaa ani waxaan aaminsanahay shaqadeeda si honesty ah oo niyad wanaaga oo aanan ahayn khiyaano oo ku danaysa ahayn aan u fulna aniga horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiiyo farmaajo ama qof kastoo madax ay dooranayaan wuxuu yahay iyo siduu yahay kuma doortaan wuxuu ku dooranay siduu u muuqdo farmaajo horta sidii dadka Soomaaliyeed ninkay u maleeyaan horta ma ahan dadka Soomaaliyeed anoon hadal badan sameeynin ninkay u maleeyaan ma ahan nin caana madaadshaah u muuqdaa nin wuxuu u muuqdaa maskiin horta ninkaas waa nin canaan maqaata which means
which means يشيء طبعا قف كستو نولنا negative traits وله positive traits وله قيب حنوا كجرتا قيب سنوا كجرتا لكن أنا وحنا ربا أنا نهدف فرماجي وحويه يواسيان لين نكو أملايان معهن أنت أصلا ربا أنا كسوكوبا وتداوديل أنت يعني كسوق بجبينة يا وريسك جارك أها وإنه الله يلني عبد الله محمد علي سنبلول شيء تليه هو إنه بتسوق دقنا كصومالية أو فافين كان بحنا يجي وربحنا ذا الحريرة كيس كي قلبي نجح وقدام بينتي وكوباقي إن سيدي سبا ولا سوء حلو سدا سلا لوجا كتبه أدبنا وجمع هاد علينا إن ورئيس جان ونجا أقبله ضاوض يال إذن أدبنا وجمع سنتين إن الناس صوتين سدا أيو بلد كليو